haweeneydan oo ururka al-shabaab u keydi jirtay hubka ayaa maanta lagu soo qabtay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. ciidanka dawladda Soomaaliya howlgallo qorsheysan oo ay wadeen saacadihii la soo dhaafay ay haweeneydan iyo hubkii ay hayday gacanta ku soo dhigeen, waxayna muddo ka tirsaneed ururka al-shabaab oo ay u keydi jirtay hubka sida ay sheegeen ciidanka dawladda Soomaaliya, sidoo kalena lagu baahiyay warbaahinta dawladda maanta. haweeneydan oo wajigeeda laga dheehan karo in ay tahay xumin ka tirsan al-shabaab ayaa muddo keydinaysay hubka, waxayna siyaabo kala duwan ula soo shaqaysay ururka al-shabaab sida ay sheegayaan xogo hordhaca oo aynu ku helayno warbixinta. maalmihii ugu dambeeyay ciidanka dawladda Soomaaliya ayaa laba jibaaray howlgallada ay ka sameynayaan gobolka Banaadir, waxayna ku soo qabteen xubno badan oo ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo siyaabo kala duwan uga dhex shaqeey jiray kooxda. haweeneydan ayaa la sheegay inay muddo aad u dheer ka tirsaneed kooxda, isla markaana muddooyin kala duwan ay ka qayb qaadatay howlgallo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lagu dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed. haweeneydan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay qaybo ka mid ah gobollada dalka kala soo shaqeyda kooxda, iyadoo intaas u qaabilsaneed inta badan hubka oo ay u keydi jirtay kooxdan.